kooxda kubadda cagta Elman ayaa saaka xirada tababarka waxay ku soo bandhigtay saxiixyada dhawaangalka ee kooxda ay la soo socotay fasal ciyaareedkani. Naadiga lagu naanayay jaaliyaasha Elman ayaa diyaargarow xoogan ugu jirta tartamada kala duwan sida Jarnaal Daawud oo dhawaan furmay horyaalka Somali Premier League iyadoo dhowr ciyaartoy kala soo socotay kooxaha dalka iyo xidigo ay ka keysatay bariga bartamaha Afrika. Xidiga ay la soo socotay kooxda Elman ayaa kala ah Maxamed Cusmaan Maynes oo ay ka keysatay kooxda madbacada qaranka Hamza oo ugu yimid Jeeyo Ibrahim Kinyabi ay ka soo qaadatay kooxda Jazeera Sports Club Faaruq oo ka keentay dalka Uganda Cusmaan oo ka soo hayaamay kooxda Midnimo iyo xidiga hore kooxda Horseed iyo xulka qaranka Uganda Achika Isa ayaa kamid ah xidiga ay la soo socotay naadiga jaaliyaasha Elman. ugu horeen waxaa goobta lagu soo bandhigay xidigaha ka hadlay macalinka labaad ee naadiga Elman Cumrey ka oo ku soo dhaweeyay kooxda xidigaha iyo sidoo kale sheegay in ay wax badan u qaban doonaan kooxda. Sidaan waxaan u keensanay in teamka noo xoojiyaan oo boosaskii oo aan ka dhibnay inaan ka buuxino hadeertan shaqo fiican ka suganay noo qabtaan insha Allah. Kale labada Achika midfield waaye oo Abel Horseed oo ciyaar jir waa taqaanina umaleena hadeertan Elman oo ku soo biiray wuxuu rajeynaa inuu shaqo fiican u ka qabsado kooxdan. ninkan Faaruq allaha midfield and defense waa difaacan waa ciyaara dhexdan waa ciyaara waxaan rajeynaa inuu shaqo fiican u qabsado wiilaa karaan. Way jiraan Hamza Asmaan ciyaartooyda Hamza oo taqaanina umaleena waa player jeen ciyaar jiri haddana waa la soo wareegnay Elman la soo wareegtay waxaan rajeynaa inuu shaqo fiican u qabto iyo ciyaaryahanka Maynes oo madbacadan ka soo qaadanay laba season oo ciyaaray asana waxaan rajeynaa inuu qayb fiican noo qaato dawlad kale. Ibrahim Kinyabi oo ciyaar jiray Jazeera asagana oo ku soo biiray teamka welcome oo soo dhaweynayna shaqo fiican ka rajeynaa dawlad kale. sidoo kale xidigaha ajaanibta ayaa dareenkooda ka hadlay inay ku soo biraan kooxda kubadda cagta Elman iyagoo sheegay inay wax badan u qaban doonaan sidoo kalena ay waqti dheer ee la joogi doonaan kooxdan. My career I started my football in Entebbe FC in 2014. Then I shifted there. Then I went to Police FC in Uganda. Then my current team was Bright Stars FC. I've just come to Elman to win more trophies, to make history here in the Somalian League. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ciyaaraha Maynes oo isagana sheegay in uu kooxda Elman oo ku faraxsan yahay inuu ku soo biiro maadaama ay kamid tahay kooxaha ugu tunka weyn. Aad ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro koox weyn oo hadan talent leh oo tan tigsinaysa inay koob guuleysato. Wallahi horta waxaan rajeynaynaa koobka uu ku soo horeeyo hadda bilowday inaan ku guuleysano insha Allah. maalinta Khamiista la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta Horseed ciyaar ka tirsan koobka Jarnaal Daawud ee xilli ciyaareedkani. kooxda kubadda cagta Elman ayaa saaka halkan waxay ku soo bandhigtay dhowr ciyaartooy kula shartigi doonto tartamada ku soo fooda leh iyadoo ay ka keysatay qaarkood wadamada Afrika halka ciyaartooy kale ay ka keysatay kooxaha dalka sida ciyaaryahan Maynes ciyaaryahan Hamza ciyaartooy kale oo kamid ah Kinyabi. Elman sanadkan waxay isku hubeysay inay u tartanto horyaalka Somali Premier League iyo koobka Jarnaal Daawud. Cabdi Fataax Abdirashiid Abu Karnaari Goal TV Muqdisho.